Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're gonna talk about passive voice in English. We are going to talk about passive voice in English. Waxaan ka hadlaynaa caawa ama maanta passive voice. Marka waan soo koobay waa qaab fudud oo cid kastana fahmi karta. Marka waxaan ka hadli doonaa waxaan soo qaatay dhowr tenses oo kooban ilaa 7 xaba ah ilaa 7 tenses aan soo qaatay. Okay, waana hab fudud oo ardaygu uu wax ku fahmi karo. Isleeyahay hadduu Ilaah yiraahdo insha Allah ta'ala. Okay, marka casharkan sii guda galaynaa marka. Okay. Qaybta ugu horeysa waxaan sameeyay marka qaab fudud. Kan waa tensigii wixii tensiga ah halkaan aan ku qoray. Wixii active ah halkaas, wixii passive ah halkaas. Okay. Waxaan ugu horeysiinaynaa waxa ugu horeeya simple present ama present simple. Active markuu yahay marka wuxuu noqonayaa sidan. Marka waxaan isticmaalaynaa hadduu Ilaah yiraahdo hal jumlad, hal sentence ayaan ku dabaqaynaa 7 tenses. Yani dhowrkan tenses ee hoos ku qoran ama hoos ku xusan. Okay. Simple present, I do my job. I do my job. I do my job. Simple present. Marka I do my job waxaa laga wadaa shaqadayda ayaan qabsadaa aniga ama hawshayda ayaan qabsadaa. Marka waa simple present. Waa everyday, maalin walba waay. Yani waxaan soo sheegnay simple present in loo isticmaalo everyday, waxyaalaha dhaca maalin kasta. Marka I do my job shaqadayda ayaan qabsadaa ama hawshayda ayaan qabsadaa. Marka waa maalin kasta. Waa everyday, maalin kasta. Marka waa active hadda. Passive waxay noqonaysaa sida tan. My job is done. My job is done. Waa passive markay tahay. Active waxaan dhahnay I do my job. Shaqadayda ayaan qabsadaa aniga ama hawshayda ayaan qabsadaa. Waa everyday, waa maalin walba. Okay. Marka passive wuxuu noqonayaa my job is done. Okay, waa fahnay. Present continuous. Anu imaano. Present continuous. I am doing my job. I am doing my job. Shaqadayda ayaan qabsanayaa macnaha. Hadda waay. I am doing my job. Shaqadayda ayaan samaynayaa. Shaqadayda ayaan samaynayaa. Waa right now. Waa hadda. Waad ku guda jirtaa. Macnaha waad ku dhex jirtaa. Waa present continuous tense. I am doing my job right now. Macnaha just okay right now. Hadda waxaan samaynayaa shaqadayda. I am doing my job. Hadda ayaan shaqadayda samaynayaa. Okay. Passive waxay noqonaysaa sida tan. My job is being done. My job is being done. Isku macno la waa macnaha I'm doing my job oo passive laga dhiga waa I'm doing my job markay tahay waa active. Passive waxay noqonaysaa my job is being done. Okay. Past simple markaan joogno waxay noqonaysaa active markay tahay I did my job. I did my job. Shaqadayda ayaan samaystay. I did waan sameeyay macnaha did waay waa past tense waa la soo dhaafay. Waa soo samaysay shaqada yani. I did my job. Shaqadayda ayaan soo samaystay ama hawshayda ayaan soo samaystay. I did. Did marka waxay cadaynaysaa past. Okay, past simple. Ama simple past. And I am doing waxay cadaynaysaa marka ing daas iyo I am iyo m taas. I am yani waa soo gaabi m oo la soo gaabi I am id waa taas apostrophe m marka e ayaa meeshaas ka maqan waa la soo gaabi marka am oo la soo gaabshay waa yani am oo la soo gaabi waa I am okay I am oo la soo gaabi waa I am oo la soo gaabshay waa waxay la tahay inaad fahamtay marka I am doing my job. Doing waa ing raacsanta soma waa present continuous waa. Okay. And past simple waxaan dhahnay marka halkaan maraynay past simple I did my job. Shaqadayda ayaan samaystay. I did waan sameeyay my job. Shaqadayda waan sameeyay.
يعني waan sameeyey shaqada macna shaqadayda I did my job shaqadayda waan samaystay waan sameeyey waa past tense waa la soo dhaafay waxay la tahay inaad fahamtay okay passive waxay noqonaysaa sida tan my job was done marka was done waxay ku cadeynaysaa inay tahay passive sidoo kale is being done waxay ku cadeynaysaa inay tahay passive sidoo kale is done waxay ku cadeynaysaa passive okay aanu imaano marka past continuous tense waxay noqonaysaa marka past continuous markay tahay I was doing my job shaqadayda ayaan samaysanayay aniga waa la soo dhaafay laakiin waa sameynaysi macnaha I was doing my job shaqadayda ayaan samaysanayay يعني waqtigaas markay xaaladdu sidaas ahayd aniga shaqadayda ayaan samaysanayay I was doing my job shaqadayda ayaan samaysanayay marka was doing waxay cadeynaysaa inay tahay waa active horta marka ugu horeysa waxay cadeynaysaa marka waa past continuous passive marka waxay noqonaysaa sida tan my job was being done marka was being done waxay cadeynaysaa inuu yahay tensigan passive okay and marka present perfect markaan joogno waxay noqonaysaa I have done my job shaqadayda ayaan soo samaystay yani marka present perfect waxaan ku soo sheegnay in loo isticmaali jiray fal yani wax shaqo markaas la soo dhameeyay markaas dhow yani shaqo markaas dhow la soo dhameeyay macnaha had dhow ayaa shaqadii soo dhameysay macnaha waxya daqiiqadooyin ka hor ayaa shaqadaada soo dhameysay markaasaad qof u sheegaysaa macnaha qof waxaad ku dhahday marka I have done my job shaqadaydii waan soo dhameeyay I have done my job shaqadaydii waan soo sameeyay macnaha I have done waa soo dhameeyay camal waay waan soo sameeyay shaqadayda waan soo dhameystay marka waxay cadeynaysaa markaas yani in markaasi dhow waqti dhow aad soo dhameysay shaqadaadii aad soo dhameysay waa soo dhameysay macnaha waxay la tahay inaad fahamtay marka passive waxay noqonaysaa sida tan my job has been done waxay cadeynaysaa marka passive okay past perfect markaan joogno waxay noqonaysaa active markay tahay I had done my job shaqadayda ayaan soo samaystay I had done waan soo samaystay shaqadayda marka waa past perfect passive markaan joogno waxay noqonaysaa my job had been done shaqadaydii waa soo dhamaystay waa la soo dhaafaya waa past perfect okay simple future ama future markaanu joogno waxay noqonaysaa active markuu yahay waa sida tan ay noqonaysaa I will do my job aniga waxaan samayn doonaa shaqadayda I will do my job shaqadayda ayaan samayn doonaa ama shaqadayda ayaan qabsan doonaa okay will do marka waxay cadeynaysaa an active yani sorry waxaan ka wadaa waxay cadeynaysaa an will do simple future will taas waxay cadeynaysaa future tense inuu yahay tensigan inuu yahay future okay passive markay tahay marka waxay isku bedelaysaa waxay noqonaysaa sida tan my job will be done marka will be done waxay cadeynaysaa tensigan inuu yahay passive yani inuu yahay passive yes will be done taas will be done waxay cadeynaysaa passive inuu yahay okay jumladan marka waxay la tahay waan soo koobay waa qaab kooban oo la fahmi kara sida ila tahay I hope inaad fahamteen oo aad ka hesheen casharkan okay halkaasaan ku soo gabagabaynayaa hana ilaabin inaad channelka subscribe garayso aad like garayso videoga aad share garayso aad sii gudbiso asxaabta kale si ay ayagana uga wada faa'iidaystaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh